haddii aad u malaynayso in Shiinaha uu keligii la dagaalami doono Mareykanka ama uu keligii noqon doono dagaal kasta oo la galo, sug mar kale. Waxaa jira dalal badan oo dunida ka mid ah oo diyaar u ah inay u dhintaan Shiinaha. Arrintaasina Mareykanka si fiican ayuu u ogyahay. Sidaas daraadeed, wuxuu isku dayayaa in uu jabiyo oo uu daciifiyo saaxiibada Shiinaha ka hor inta uusan si toos ah ula dagaalamin. Halkan waxaan ku faahfaahin doonaa dalalka sida buuxda uga dhinac dagaalami doona Beijing, laga bilaabo Pyongyang oo Kooriyada Waqooyi ah diyaarna u gantaalo, ilaa Moscow oo Ruushka oo fuli kara aagag cusub oo dagaal gudaha Yurub, ilaa Pakistan oo qabsan karta koonfurta Aasiya, iyo weliba dalal kale oo Shiinaha ah si hoose u taageeri doona, kuna taageeri doona hub, dekado, xog iyo dhaqaale, iyo kuwo ku taageeri doona siyaasad ahaan. Xitaa dhinaca warbaahinta Shiinuhu waxa uu haystaa hubkii ugu awoodda badnaa ee soft power, laga bilaabo TikTok ilaa shabakadaha caalamiga ah ee propagandada. Dagaalkan ma aha midka kaliya ee u dhexeeya laba dal, waa dagaal ka dhana shabakad caalami ah oo la yiraahdo saaxiibada Shiinaha. Sidaas daraadeed, Shiinuhu kaligiisa ma aha. Dalalka ugu dhow ee Shiinaha u dhiman kara waxay kala yihiin: 1. Kooriyada Waqooyi. Pyongyang uma baahna martiqaad dagaal kasta oo ka dhex qarxa Beijing iyo Washington wuxuu noqon doonaa fursad dahabi ah oo Kim Jong-un uu ku furo aagag cusub oo gobolka ah. Mid ka mid ah meelaha ugu xasaasisan dunida, hal weerar gantaal ama hanjabaad nukliyeer ah ayaa ku filan in Mareykanka ciidankiisu kala qaybiyo badda Basifiga iyo Kooriya, taasoo Shiinaha siinaysa fursad dheeraad ah oo uu ku dhaqaaqo. 2. Ruushka. Dagaalka oo dagaal kale la barbar socodsiiyo. Tan iyo markii madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo Putin ay ku dhawaaqeen in iskaashigooda xuduud la'aan uu yahay, waxay taasi caddeysay in dagaal kasta oo ka dhana Shiinaha isu rogi karo dagaal laba weji ah oo ka dhana Mareykanka iyo xulafadiisa. Ruushku waxa uu furi karaa aagag cusub oo Yurub dhexdeeda ama cadaadis saaraya badda Baltiga, taas oo uu daalinayo NATO, isla markaana ka daalsiiyo dhanka saadka militariga. Ruushka uma baahna in uu askari u diro badda Shiinaha, keliya kicinta aagaga cusub ee Yurub ayaa ka dhigi doonta in xayiraad kasta oo Beijing lagu soo rogo ay noqon doonto mid aan macquul ahayn. 3. Pakistan. Islamabad waa saaxiibka militari ee ugu muhiimsan xilligan Shiinaha koonfurta Aasiya, kanaalna u ah gaadiidka iyo tamarta, iyadoo loo sii marayo buuraleyda Karakoram. Haddii dagaal uu dhaco, kicitaan Pakistan ayaa ku wajahan Hindiya oo saaxiib dhow la ah Washington. Waxa uu dhalin karaa dhibaato gobolka ka jirta oo mashquulinaysa Mareykanka iyo xulafadiisa, iyadoo Shiinahana uu helayo jabhad dambe oo ammaan ah. Saaxiibada dagaalka qarsoon. Cambodia ma aha oo keliya dal yar oo ku yaala koonfur bari Aasiya, waa marinbadeed muhiim oo Shiinaha u furan gacanka Thailand. Dekadda Reem Naval Base oo Shiinuhu maalgeliya waxay noqon kartaa saldhig lagu taageerayo maraakiibta Shiinaha ama xarun sirdoon oo la socota dhaqdhaqaaqa Mareykanka. 2. Laos iyo Myanmar. Jidadka dhulka ee ammaanka ah. Laos waa buundada dhulka ee isku xirta Shiinaha iyo Thailand, halka Myanmarna ay Shiinaha siin karto marin bad kale oo Hindiya ku yaala, iyadoo loo sii marayo dekadda Kayokbuy oo ay maamulaan shirkado Shiinees ah. Taasina waxay ka dhigan tahay inuu Shiinuhu shidaal, badeecado iyo qalab militariba u soo rarto, isagoo oo aan marin biyoodka Malaaka ee Mareykanka isku dayi karo in uu xiro. 3. Iran. Iran waxaa laga yaabaa inaanay si toos ah ugu dagaalamin Shiinaha, balse waxay awood u leedahay inay kiciso dhanka gacanka ama hanjabaad ku samayso maraakiibta shidaalka ee maraya Hormuz. Tani waxa ay kor u qaadaysaa qiimaha tamarta waxayna abuuraysaa qalalaase dhaqaale oo dunida ah, taasoo u adeegaysa Beijing. 4. Venezuela iyo qaar ka mid ah dalalka Afrika. Venezuela oo haysata kaydka ugu weyn ee saliidda caalamka iyo dalalka Afrikaanka ah sida Angola iyo Zimbabwe ayaa diyaar u ah inay Shiinaha siiyaan shidaal iyo macdan, iyaga oo jebinaya cunaqabateynta Mareykanka. Taasina waxay siinaysaa Shiinaha taageero dhaqaale oo uu ku sii jirayo xitaa xaaladaha ugu adag.